بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال إنهانتي بميل كستو أنا قد داوانسان برامجك بندقة حسبك وبرامج مركزي أنكو إيجينو أريمها حسبك برامجك أسبوعا وحا مرتي إيقوة قدومي هراء قبل كبنادر أهنا مركزي حقهايها باهنتا حسبك شيخ يوسف حسين جمعالي مدالي أي برامجك مرتي إيقوة أسبوعا سودو قدومية آدي آياد وما سنتين بهذا تلفزيونك حزبك UPD وأنا كدوا رنتي وأنا إذن سلامة دنا حق هي واحد نشر حدا ومحي أجدد كدم بيسي أساسك حزبك UPD رنتي نحاولوا المركي عن سؤال هذا جوابتي عن كذا قالوا سان لو صحنا بقى ودنك الصومالية لبكون أفرتي دولتي كسر دسنتي بجاتي يا وحال وقعتي تستوركم بالجارة يضلكوا إنه وجود به دورشة هي أحزاب أنا قلت هاسك الدولة إنه يا وحال أساسي حزبك UPD سببت حزبك الله أساسي يا وحي هذا ودنكوا لبدي كل لقى باللعبة وحاول حقوق يبسنا أي واحد لهذا أو تقيبس أو قبيلة ديسن أو 4.5 لو يقانو مركا سلوا جذبه أي ودن كواحد ربعنا وقال أحزاب أنا جو مركا لبكون يكوي تمنكي أي حزب أنا بدي هرو مركا حزب لهذا على أساسي حزب كله دلجر لهذا أي أسيقنا أساس مي حلي ده أسكدب برلمان كقدلة لهذا قدلة هرو صعد أي سد حاس أي أركتي أضياء شو ده سوتجي waxay isla qaateen in ay bilaabaan ayaga midnimada iyo isu tag inay ayagu bilaabaan maadaama san wada ogsoonaaba maaragtay group iyo lagu soo daalay sidaa darteed marka waxaan bilaabaynaa ama dadka la tusaayay midnimada waxa ay tahay wanaageeda marka afkaartii ama ururkii daljir iyo ururkii PDB xisbiga nabadda ee horumarka ahaa iyo kudlo la yiraahdo huru socod ee labada gole ee aqalka sare iyo baarlamaanka ka wada tirsan waa isla wada baarlamaan ka tirsan ayaa isu tagay ayagana waxay isla qaateen inay aasaasaan xisbi oo waliba xisbi markaasi mugle macna lana waxa soo bilaabatay awaailkii 2018 ay aragtida soo bilaabatay muddo la karinayay kadibna waxa la sameeyay dastuurkiisi waxa la sameeyay barnaamijyadiisa kale waxa la isu yimiday 30 bishii 9aad 2018 ayaa la isu yimiday iyadoo lagu ansixinayo dastuurkii ku meel gaarka ahaa dastuurku meelgaarka markii la ansixiyay kadib waxa loo gudbay xaflad la yiraahdo xafladda daafurka xisbiga si loo gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed loo gaarsiiyo xafladda daafurka markii xisbiga waxay dhacday 4 Oktoobar 2018 ayay dhacday xafladdaas oo ay ka soo qayb galeen ummadda Soomaaliyeed inteeda dad badan oo kamid ay ka soo qayb galeen oo hoolkii aan ku qabanay meel laga istaagay meel laga fadhiista la waayay taas ayaa waxay suuro gelisay marka in xisbiga UPD oo noqdo xisbi dadku inta badan ay ku wada baraarugsan yihiin ka mid naqashadiisuna cid walbaba ay danaynayso marka xisbiga waxa la aasaasay markaan su'aashaada jawaabteeda toos u galo 4 Oktoobar 2018 ayaa lagu dhawaaqay laakiin maskaxda iyo aragtida aasaasidda way ka horeysay xog haye waa maxay ahmiyadda xisbiga oo u leeyahay bulshada Soomaaliyeed saan la wada soconaba ahmiyadda ahzaab ay leedahay waa isbedel siyaasadeed oo si nabad ah ku dhaco waxa la yiraahdaa xisbiga ahmiyadiisu waa tiirarka dimuqraadiyadda kamid ah dimuqraadiyad jiri mayso haddaan ahzaab jirin marka si dimuqraadiyadaas ay u jirto waa in ahzaab la helaa ahzaabtaas marka la helana waxa imaanayso inuu qofka codkiisa xur u noqdaa cidda uu siinayo ma Yuusufan siinaya ma Xawluulan siinaya ma Caliyan siinaya ma Umaran siinaya shakhsiga asiga xaq u leh markaasi marka ahmiyadda xisbiga oo leeyahay waa ahmiyad ballaaran oo weyn annaga marka ka shacab Soomaali ahaan maadaama aan ku soo daalnay awoodi qabyaaladisneed aan ku soo daalnay siyaasadii qabyaaladisneed aan ku soo daalnay waxaan rabnaa inaan uga gudubno awooddaas uga gurno sida adduunka oo kale oo maanta ka socoto oo ahzaab loo gudbo ahzaabtaasi marka loo gudbo waxay suuro gelinaysaa in dhibaatada ummadda ka haysata siyaasadda iyo awooddaana ku kooban oday ku kooban maalin kasta ku kooban in laga gudbo loo gudbo awood shacab loo gudbo awood shacabna imaama karto haddaan xisbi leelin marka xisbiga ahmiyadiisu waxa kamid ah
arrimanka noocaasa ka mid ah sidii looga gudbi lahaa. waxaad sharaxaad naga siisaa hiigsiga iyo himilada ee xisbiga. xisbiga runtii waxa waaye lama soo koobi karo ahmiyadda ama himilada uu leeyahay iyo danaha uu rabo inuu gaaro, maxaa yeelay shacab Soomaaliyeed ee burbursan ee dhaqankii iyo diintii iyo siyaasadii iyo dadnimadii iyo akhlaaqiyadkii ka burburo ayaana hadana Soomaali waa la wada ogsoon yahay. marka waxaan rabnaa inaan ka gudubno oo xisbigaana uu noqdo mid sameeyo wacyigelin bulsho, sameeyo si dadka maskaxdooda loo dhiso. ugu dambeyntii xisbiga nabadda iyo horumarka yaa ka mid noqon kara, ha yeeshee sida looga mid noqon karaa? aad iyo aad waa runtii su'aal muhiim ah. kolba xawluul waa ka mid noqon kartaa, waxaan daabka celinahay ma jiro. marka xisbiga waxaa looga mid noqon karaa runtii shuruudaha qofka uu xisbi ku geli karo marka uu buuxiyo. waa inuu Soomaali yahay, waa in da'diisa ay gaarto, da'di qaangaarka ay gaarto, waa inuu maaragtay uusan dembi dalka ka gelin, aysan maxkamad xukuminin. waxyaabo badan shuruud noocaas uu leeyahay jirto, dastuurka xisbiga ku qorayn oo laga heli karaa. waxa waaye cid walba ee Soomaali ah ayaa ka mid noqon karto, ha dheeraado, ha gaabnaado, ha cadaado, ha madoobaado, naafo ha ahaado, ha caafimaad qabiyo, gabar ha ahaado, wiil ha ahaado, oday ha ahaado, dhalinyaro ha ahaado, kulli waa laga mid noqon karaa. xisbiga cid uu ku xiran yahay ma jirto. sidee looga mid noqon karaa? waxaa looga mid noqon karaa xisbiga xarumo leeyahay oo dadka lagu diiwaan geliyo. wuxuu leeyahay page ayuu leeyahay oo dadka isku diiwaan geliyaan oo online la yiraahdo ayuu leeyahay oo qofka markuu galo ubd.so markuu galo waxa uu soo baxayso xisbiga shuruudaha laga rabo qofka, mabaadi'diisa, ujeedadiisa iyo qaabka uga mid noqon kara soo baxayso. sidaa darteed marka kan dibadda joogo iyo kan gudaha joogo inta way ka mid noqon karaan. marka sidaa darteed waxaan aad iyo aad aan u danaynayaa runtii amba aan ugu yeerayaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka dhalinyarada ah iyo dadka indheergaradka ah inay ka mid noqdaan xisbiga UPD ayagoo haday dibadaha joogaanna galaayo ubd.so galaayo say uga helaan meeshaasi. dadka joogo meelaha xafiisyada ka furan yihiin inay sidaas xafiisyada ay tagaan ay iska diiwaan geliyaan. marka xisbigaynu cid walba u furan yahay siyaasi iyo siyaasi laan ku mixra, maxaa yeelay meesha aan rabno qofka inuu tababarka ku soo qaato oo lagu soo dhisaabo waxay tahay meeshaani. marka waataan ku iro goob lagu caway karo ay dadku ku soo bixi karaan ayaan rabnaa inuu noqdo xisbiga UPD. haddii xisbiga uu noqdo marka xisbi xayndaab leh ee dad khaas kaliya loo ogol yahay, dadka shacabka Soomaaliyeed muraadka ilaahayeen iyo ahmadii xisbiga uu lahaa ka sukan ka laabanayna. sidaa darteed marka waxaan rabnaa inaan gaarno waxa aan hiigsanayno waxay tahay dal xur ah, dad nabad ah, ummad midaysan inaan gaarnaan rabnaa, una midaysan siyaasadooda, horumarkooda iyo dhaqaalahooda iyo nabadooda lagamana shaqay karo afkaar midaysan oo dadku wada leeyahay haddaan la helin. marka waa gole wada tashi waaye. dimuqraadiyadna waxay ka bilaabataa xisbiga gudihiisa ka bilaabanaysaa. xawluul maanta haday rabto in ay madax noqoto waa in xisbiga doortaa, waa in la isu keenaa, waa in ay tartantaa, waa in cod loo qaadaa. haddii ay guulaysatana daa'idaa madax ah, haddii laga guulaystana dagaal ma jiriyo. meeshaasay noo joogtaa. marka sidaa darteed Soomaaliya oo dhan sidaas ka rabnaa. waxaa kaloo laga maarmaan ah axsaabta waxaa loo samaynayaa tabaadul siyaasi oo silma in la helo, gacmo qore isu dhiib. siyaasaddu sideedaba waa ogsoontihiin 4 sano ayaa hadda dastuurkeena qoraa inuu madaxweynaha Soomaaliya 4 sano inuu haynayo ayuu qorayaa. marka waxaa soo qabtay gudoomiyaha xisbiga madaxweyne Xasan Sheekh 4 sano uu soo hayay. 4 sano markay dhamaatay doorasho la aaday si silmiyo nabad ah ayuu ku tartamay. markii lagu guuleysana si ummadda ay wada arkayso u wareejiyay. sidaas la mid ah madaxweyne ka soo horeeyay Shariif Sheekh Axmed, sidoo kale Cabdullaahi Yuusuf, sidoo kale Cabdul Qaasim, sidoo kale cid isku dhajisay saldanadii ma jirin intii la soo dhaafay. kuwa hadda joogana waxaan ka rajaynaynaa sidaas la mid ah inay ayagana ay u ogolaadaan waqtiga marka la gaaro inay wareejiyaan kursiga. hadday guuleystaana ayagaan u sacbinaynaa waana daba joogaynaa. haddii laga guuleystana waxaan rajaynaynaa inay sidii loogu wareejiyay si la mid u wareejinayaan. laakiin si lagu gaaro waa inay ogolaadaan saaxada siyaasadda waqtigeeda markii la gaaro tartan furan, cajajuub la'aan iyo maaragtay qoro isku taag la'aan waa inay ogolaadaan. taas ayaan rajaynaynaa insha Allah. intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii bandhiga xisbiga oo isbuucan marti iigu ahaa Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ahaana gudoomiye hore ee gobolka Banaadir. barnaamijka
bandhiga xisbiga waxaan inii tabanaysaa anigoo ah Xaawo Axmed Xasan intaan barnaamijkan barnaamij la mid aan ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo